Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay habka loogu sheego luqadda Ingiriisiga ee magacyada xayawaanada ama mawduuca kor waxaan dhahnay learn animal names in English language. Ku baro magacyada waxa loogu yeero xayawaanada luqadda Ingiriisiga marka waxaan dhahnay xayawaanada markii laga hadlayo luqadda Ingiriisiga waxa loo qaybiyaa laba qayb xayawaano la yiraahdo domestic animals ama xayawaanada la dhaqdo xayawaanada guri joogtada ah iyo xayawaano wild animals la yiraahdo oo ah xayawaano duurjoog ah marka labadan qayb ayaa jirta marka Soomaalidana waa ay leedahay xayawaanada la dhaqdo iyo xayawaanada duurjoogta ah marka waxaan ku hormaraynaa bal maanta casharkan wuxuu ku saabsan yahay xayawaanada la dhaqdo laakiin qaybtan hordhaca ayaan marka hore fasiraynaa. There are different types of animals waxaa jira qaybooyin kala duwan oo xayawaano ah. Waxaa jira different types of animals waxaa jira qaybooyin kala duwan oo xayawaano ah. And the two main differences are that some animals are domesticated, which are the ones that have strong relations with humans, and others are wild. Marka waxaa jira laba type oo ama types oo laba nooc oo xayawaano ah kuwa oo ah marka xayawaano la guriyeeyay ama bani aadamka u dhow ama guriga jooga kuwaas oo marka xiriir wanaagsan ama xiriir xoogan la leh bani aadamka iyo xayawaano kale oo iyana ku jira ama jooga weldiga ama duurka ama keymaha ayaa la yidhi marka jumlada koowaad waa inta. Jumlada labaadna waxaa la yidhi wild animals xayawaanada duurjoogta ah live waxay ku nool yihiin in nature waxay ku nool yihiin marka natureka ama keymaha ama duurka marka usually had iyo jeer marka these animals xayawaanadan are not in contact with humans marka bani aadamka xiriir lama lahan xayawaanadan since they live in an area apart from civilization marka waxaa la yidhi xayawaanadan inta badan xiriir lama lahan bani aadamka waxayna ku nool yihiin marka meel ka fog xadaarada bani aadamka marka casharka waxaa dhahnay wuxuu ku saabsan yahay marka domestic animals marka waxaa dhahnay domestic animals waxaa ugu yeernaa marka Soomaali ahaan waxaa dhahnaa marka xayawaanada la dhaqdo si kalena waa loo dhigi karaa xayawaanada guri joogtada ahna waa la dhihi karaa marka cow ayaa ugu horeysa cow waxa la yidhahdaa marka waa lo'da ayaa la yidhahdaa sheep waxaa la yidhahdaa marka idaha ama idaha la dhaqdo ayaa la yidhahdaa marka camel waxaa la yidhahdaa geela ay Soomaalida dhaqato goat waxaa la yidhahdaa marka riyaha ayaa iyana la yidhahdaa marka ereyga chicken waxaa la yidhahdaa digaaga ayaa sidoo kale la yidhahdaa horse waxaa la dhahaa waa farasta marka horse ayaa la yidhahdaa marka ereyga catna waa bisad marka ama mukulaal sidoo kale rabbit oo ah bakayle inkastoo anaga Soomaali haddii aan ahay inta badan aan dhaqanin rabbitka haddana waxaa jira wadamo badan oo dhaqda oo guri qaarna waxay u dhaqdaan sidii xoolo iyo inay cunaan qaarna waxay u dhaqdaan guri joogto marka asiga ayaa dhowr nooc kala leh marka wuxuu ka mid yahay xayawaanada guri joogtada ah sidoo kale donkey waa dameerka asigana wuxuu ka mid yahay xayawaanada la dhaqdo duck bolonboolo iyana waxay ka mid tahay xayawaanada inta badan dadka qaarna way dhaqdaan dadka qaarna waa ay soo qabsadaan marka waa xayawaan la cuno turkey iyana waa shimbir ka mid ah shimbiraha la cuno oo u dhow sida digaaga marka intaasi waxay ahaayeen xayawaanada la dhaqdo oo guri joogtada ah oo la isticmaalo inta badan hilibkooda ama
nafcooda bani aadamka ka faa'iideysta sidoo kale waxaa jira big doonfaarka wadamo dhaqada ayaa jira marka halkaa waxaan ku qoray NB marka aniga ma dhaqano Soomaali hadii nahay laakiin isticmaala laakiin Soomaali hadii nahay gurigan oo ma joogo marka wadamada qaar gaar ahaan wadamada aan muslimiinta ayaa iyana isticmaala marka wuxuu kamid yahay kuwa guri joogtada ah marka casharkii oo ka koobnaa labadaas qeyb maaragtay ku saabsanaa domestic animals marka intaas ayuu ku yahay waana qeybtii koowaad qeybta xigtana waxaan kusoo gudbin doonaa xayawaanada duurjoogta ah marka